موقفك حسبي وطني قضية دكتة بربرة وحرنيد طبعا كي عشرة دنبيس حسبي أنا جو حسبي موقف كيس أكو هذا إياه أنت أنا حرمين بانو أنا وكسي هذا عشان طبعا كي بيشي ديسمبر إن هدي جوان كا تعريف هذا يكون كلنا يسوع شركة دي بي والبربرة ومركها كان عصتنا أي وراق قرطي chamber of commerce وراقها قري بندولة وجو باغني مركها وديسمبر ستيدي تمن كيدي إن الحكومة تسوفر الجليسو سيلوجا باقصدين الدكتور حرنتو نصيب درو دولة أو فردية ما يدعين أرنتي لو ما سويت شو بينقل عصاد وراقي قيلان تهايد الديران إذا واحد علينا طبعا عشان كده حليت شلي بقى يدوا اللي جوه الشيء إن عجن عصاد وحبا كمان عن مقال مسؤولين الدولة أيوم بقى الناس شايين له الشيء هجيس كأن الناس شايين مرة ما أنت هنا كجاه الله سنة اللي بتوين وأقول له والله بحنين وحكلوا هرت تاجر رسيلنا هرنا وحاول شرتي سنة كان هنا شان يطول مع المدح اللي كده ما أنت أنا طبعا بحرنت مالك يسود كده حرنت واحد خسارة كنت هرقالها واحد خسارة كنت هيدخل جومتها يبي سنة الدولة أو العكس وجري الهيد بباقنا واحد صورنا واحد كتمت مسؤولية هذا فردي لماذا يا كرتلان حكومة الثلاثة هيسا أي كولي جينا تاريخ البربر ما يدعينا يحنا طمالين إلى مالين حنا مرة رشنا يتوان معلومات بحرنت من هنا طبعا بحرنت أرنت أدبر رتي وحنا هاي وما أنا هون هالكنا عادو يو ما قرنيسا لبعض دولتي نيو إمك النقطي دولة فشلة أنت عمر كان كنت بشري وركي أي نوش شيء وسير كجناحسه ونوش شيء يقولوا إنه لمايناي يقولوا إحنا كل لمايناي إن قرر كي دي بيول سمايسي ولا مال مريو كان عساتنا ويقبلان كان عساتوا يكون قسمين يقبلان كان عساتنا يقبلان بدأ عدوا دي مش واحد يبني ويقيدين وحبوا اللغة من كرواي شحنا ذا نمكي لما كان لب حالنا كله تلوين كودين ميلك هلا كلا سود دجان سدا يمكن كم بلعبين ويا أما إن ضدك يسكت أفيان قيمة قرار خاو ضدك فولو لما بحنا قرار كان حل اللي وجود شرو سعر برا لما بحنا مو هين وسير كشلي مركا أرنتها وشاقي ومركي دمنا حوتشي ماريها دكذا سعيد runtii iyaduna nasiib darro kala dhacday weey waana taansaaka doonayaan halka wax ka yiraahdo waa marka koowaade waxay meel mariyeen oo la isla qaatay kororkii maciishada muxuu ahaa kororkii qiimayaasha khidmadda adeegyada ay qabato dekada oo boqolkiiba 50 la kordhiyay konteenarada 20 fiida boqolkiiba 40 la kordhiyay ama wax ku dhow ama 32 boqolkiiba 32 konteenarada أفرتك فيدا كوان كونتين هذا كوتشيلنا يجينا بقولك بدوري أفرتن لكردية وحكلوا شرطة أو وسير في ناشئة إن أرنك الشركة أي كقريب كلام السجا يوسير كماليته ميزانية دي بيضنا قلا هرت الله ميزانية هروح إنه باقنا سعر بركة إن يضع حالة سعر بركة اللي كوتشيلوا الدولة أي وحكة قبضته ميزانية قلها هرتها لو وسير كماليته وحكو صدري isagoo markaa la sicir bararkan la dagaalameyno mudnaanta koowaad siiyay haddana dagaalkii loo baahnaa muu keenina wuxuu yiri boqolkiiba 10 baynu maciishada ka dhimaynaa muddo 6 bilood ah sidaa markay tahay iyadoo aanu go'aankaasi marka horeba ku filnayno sicir bararka wax ka qabto ba haddana DBL kordhisay khidmadii adeegyada ay dekada qabato ee konteenarada marka shalay markii laga hadlay arinta ay yiraahdeen hameel maro korarkii macnaheedu waxa weeyii sicir bararkii iyo wixii waxba lagama gelin bal waxaan idin sheegayaa sidoo go'aanka si macnaha uu leeyahay tusaale koobanna waan soo qaadanaya gabdhada bariiska ee 50 kiilo ku jira markay dekada berbera timaado $2 iyo 24 senti ama 19 kun oo shilin iyo 200
ayaa saaran oo 14,000 oo ka midana ay cashuur dawladeed tahay 5,000 oo ka midina ay tahay kharashka containerka haddaba iminka marka la yiraahdo waa la DPL waxay kordhisay khidmadii saameyn bay ku yeelanaysaa taa macnaheedu waxa weeye 5,000 DPL qaadi jirtay marka la xisaabiyo kororkan gabdadii 8,100 shilin bay saartay 8,100 shilin ayay saartay dawladda haddaynu xisaabinay iyadana 10% ay tiri waynu ka jabinay waxa weeye 1,400 shilin bay dawladdu jabisay cashuurta ku lahayd gadbada DPL-na 5,000 bay saartay gadbadii wasida marka macnaheedu waxa weeye 4,400 dawladda gabdada wixii saarnaa yaraysay 5,000 DPL baa kordhisay marka 4,000 dheeraad ayaa saaran oo DPL uu ka yimi iyo khidmadeeda iyo adeegeeda boqolkiiba 4 bay intii ay shalay ahayd ka qaalisantay wax ka qabashadii sicir bararkuna meeshay ka baxday si kororka DPL meesha looga saaro dawladdu waxay u baahan tahay boqolkiiba 8 inay hoos u dhigto muxuu ahaa cashuurta ay ka qaado badeecadaha raashinka iyo maciishada boqolkiiba 8 waa inay hoos u dhigtaa waxa ay ka qaado iyadoo marka kadib bay sixir bararka u soo gudbi kartaa waxa ay ka qabanayso marka waxa weeye sixir barar lama inaan dagaalamayna dadka waxa loo quminay ereysan isticmaalaya muxuu ahaa arrinka kororka khidmadaha waa dadkii u dhiiga laga shaqeeyo waa nasiib darro weyn runtii aad baan uga xunahay maanta marka go'aanka shalay ay la qaadatay DPL wasiirka ganacsiga wasiirka maaliyadda ay la qaateen iyadoo sixir bararkiiba la gaadhin boqolkiiba 4 wax ka badan bay maciishadu intii hore ka qaaliyoobisay sixir bararkiina waa halkiisii waxba lagama qaban taa horta inaan ka yiraahdaa baan doonayay baarlamaankana waxaan fari doonaa markaa oo miisaaniyadda horta loo fursado in runtii uu yahay qodobka labaad waxa weeye haddii khidmaduhu la kordhaan shirkadda meesha aynu ka kiraynay heshiiskii aynu la galnay 2016 qodobkiisa 12aad baa tacriifada ka hadlayay heshiiskii DPL ee Soomaaliland 2016 kaleen baa tacriifada ka hadlayay qodobka 12aad wuxuu sheegay in shirkaddu ay awood buuxda u leedahay in iyadu wax ka bedel ku samayso tacriifada adeegyada ay qabato haday kordhinayso iyo haday hoos u dhigayso in awood buuxda oo aan cidina la lahayn in iyadu leedahay horta cusub ma wax sharcigi iyo hay'ad si xeerkii aynu wada galnayeen heshiiskii way waxa uu qodobka hore heshiiska ku jirtay marka ay kordhinayso shirkaddu ama wax ka bedelayso tacriifada waa inay la tashi la samaysaa dawladda marka dawladda horta markay kordhinayso barigi dhaweyd way la tashatay tuunkaasi uu lagu jiray inaanay tala la'aan iska kordhin shalayna wasiirku uu qiray marka horta wax cusub ma yahayn oo dawladda kuma cusbayna dawladdu waxay la soo qaadatay bay marka hore kororkan ahaa waana sababta ay ugu dambeyntii arrintii ku dhamaatay in kororkii la meel mariyo xukuumadda shalay wasiirka ganacsigu markuu hadlay wuxuu yiri waxaanu dhexdhexaadinaynay ganacsatada iyo DPL arrinkaana wasiirku runka ma sheegayay DPL iyo xukuumaddeenu kororka way ku wada socdeen oo waa laga soo tashaday marka midhaana runka uu sheegay wasiirku dhexna kama ahayn dhinac buu ahaa dhinac DPL way la soo tashatay waanu qirtay shalay qodobkan inuu ummadda u cadeeyaan doonayay xukuumaddu qayb bay ka ahayd in la kordhiyo waa laga tashaday waana sababta sidii ay arrintu noqonaysay ugu dhamaatay qodobka saddexaad waxa weeye shirkaddu waa macaashdoon marka ay kordhiso khidmadaha adeegyada ay qabato macnaheedu waxa weeye macaashkeedii kordhinaysa macaashka kordhaya shirkadda waynu la lahayn saami waynu ku lahayn shirkadda boqolkiiba 35 shan sano oo ay shirkaddaasi joogtay wixii macaash uu inoo noqonayay boqolkiiba 35 ka saamiga aynu lahayn kuma jiraan miisaaniyadda qaran kuma jiraan wasiirka maaliyadda oo laga wareysay BBC-duna uu ku margeeday markii la weydiiyay shirkaddu may macaashin samay macaashin dadweynaha reer Soomaaliland waxaan uga sheegayaa shirkaddu way macaashay xogtii aanu ku horgalnay iyo baaritaanka eegay haddaan la xisbiga wadani
sanadkan 2022 13 milyan oo dollar ilaa 12 milyan 500 oo dollar ay shirkadu macaashayso oo aynu ka helayno 5 milyan 500 ilaa 4 milyan 500 oo macaasha lacagtaasi kuma jirto miisaaniyadda dawladda ee iminkana horta la golaha wakiilada marka macaashkii shirkadda aynu la lahayn xun bay noqon lahayd haddii aynu xataa macaashka wax ka helayno waxaynu xaq u lahayna tiina laguma soo darin xagee tagtaa madaxtooyaday tagtaa lacagtaas marka xukuumaddeena iyo shirkaddu labadu waa macaashdoon ummadda reer Somaliland baahidin macaash ugu soo noqdo miisaaniyaddooda ku jiro amniga wax laga qabto biyaha wax laga qabto waxbarashada laga qabto ma dhacdo taasina miisaaniyadda imika horta la golahana kuma jirto marka shirkadda macaashkeedii aan xaq u lahayna hadaynu dadkii reer Somaliland nahay inaguma soo noqonay cid la soo qaadatay korarka xukuumadda ayuu jeebabkeeda ku dhacay madaxtooyada habeen madow la geeyay taasina qodobka dambe doonayna inuu iftiimiyo dadka qodobka saddexaad shirkadda DBWL sida heshiiskeenu ahaa 9 qof oo board bay yeelanaysa DBWL berber talayda 3 qof bay hadinaynu ku yeelano markay DBWL go'aankan kordhinta khidmadaha adeeg ay qabatay gaadhayso miiska ay ku gaadhayso 3 qof bay hadinayno fadhiya oo Somaliland ka socda iyaguna 6 bay hadinayaan 3 qof ilaa maantada reer Somaliland ma ogeyn la magacaabay hadii la magacaabay cid ay yihiin lama yaqaano marka miiskii ay DBWL go'aanka ku gaadhaysina cid baa inoo fadhiday markii ay cidiina cid ay tahay inagu garan mayno si loo soo xulayna ma naqaano madmadow badan baa ku jira halkaan xalaal iftiin baa la qashay umada wax loo cadeeyo xubnaha DBWL ugu jira DBWL berber boardka Somaliland ugu jira ee marka go'aanada korarka khidmadda la qaadanayo talada kule iyo sida loo soo magacaabay marka laba jeer baynu ognahay go'aanka mar 3 qof oo ay dawladdeenu magacawday baa boardka fadhiya inagu ma naqaan cidiina waxa si madmadow ku jiro inaan garanaynin baa loo magacaabay mar labaad kana markay isla soo qaadatay DBWL berber 3 qof ay inaga boardkoodii wixii ku jiraan dawladdeena waa la tashaday raalli bay ka noqotay mar saddexaadka macaashka ay ka sameyn doonto korarka khidmadaha adeegyada ay kordhisay wixii naga soo noqon lahayd naguma soo noqonayaan meel kale maraya oo wala luusanaya lacagtaasi shirkadu way macaashtay cidii dood qabta anaga noo timaada haddana wasiirka maaliyadda ogeyn wuxuu xaq ummadda ugu leedahay 5 sano ay joogtay warbixinta maaliyadeed hadday khasaartay iyo hadday macaashtayba in baarlamaanka la horkeeno lagu soo lifaaqo miisaaniyadda ma dhicin taasina BBC-da wuxuu ka yidhi gaf bay ahayd ummaddan inuu raalgelin ka siiyo Saad Cali Shir inaan kan Siciid la yiraahdo maareeyaha dekada waxa noo keenay inaan garanaynba isagu waa board authority wey waa agaasime dekada boardkeeda DBWL berber 3 qof baa loogu jiray oo hawlaha khidmad kordhinta iyo waxan loo qaabilsan waxaan halkan ku xujeenayaa xukuumaddu inay dadka u soo bandhigto cid ay yihiin iyo sida uu magacawday kuwaasina raalli bay ka ahaayeen waxaan ku soo gabagabeynayaa baarlamaanka halkan fariin uga dirayo iyo wasiirka maaliyadda iyo ganacsiga oo dhinaca iyagana fariin diri doono baarlamaanka waxa la weydii horta la miisaaniyadii koow mar hadii la meel mariyay korarkii khidmadaha adeegga DBWL samaysay waxa weeye wasiirku miisaaniyadda uu idin soo gudbiyo leeyahay sicir barka waxba ka qabanay meesha way ka baxday horta wada ogaanaysan golaha wakiilada boqolkiiba 8 iyo 30 waa in cashuurta hoos loo dhigaa si DBWL kororkeedaas meesha looga saaro boqolkiiba 8 iyo 30 marka kadib baad sicir barka wax ka qaban karaysan marka boqolkiiba 10 kii waan ka goynaya waa waxba kama jiraan cashuurta waxaan ku talinay boqolkiiba 70 oo boqolkiiba 8 iyo 30 kamid ay tahay DBWL kororkeeda meesha laga saarayo oo ay isku goosanayaan inta kalena boqolkiiba dhowr iyo 40 kalena ay sicir bararkii waxtar leeyahay inay ku sameeyaan ka boqolkiiba 5 iyo 20 hoos u dhigaan maciishada sonkorta daqiiqda bariiska saliidda kuwa
وبرلمان كانوا ديريا لبا برلمان waxa kale oo diraya in معاش way معاش dekada berberi 13 milyan oo dollar bay macaashtay anaga cadaynayna wixii macaashka in ku lahayno boqolkiiba 35 ahaa 5 milyan iyo dheeraada inay miisaaniyada ka muuqdaan baa laga rabaa golaha wakiilada miisaaniyada kuma jiro haddaan saacadogeyn anaga saacadna hala weydiiyo warbixintii maaliyadeed iyo warbixintii wax qabad ee shirkadda miisaamiga ku leeyahay xaq baa loogu leeyahay والله صدح وسير كمالية ده وسير كجناح سوينس السلام ما هالكن وجب باقية كل هذا أنا حوالي ومدوا إلى لينكرين كل هذا أنا اللي حسابته من كرين الشركة دي أي مسامي كلها هاي مرة هذا أنا ومدوا النحين هاوش أول جبان وأنا كوفر الشلمان مرة هذه دكتي طبعاً معلومات إما كحرنايد هرانا سنة كيجوز سنة طبعاً معلومات حرنايد وليه تاريخ اللي يدعين ولما يوبنا يضطر خراسي عيد هوشان قبل كرس هاتي ما ده إذا كان يوبنا يعني الله سيجارة وسير كراسي واحد ولا ماذا حوينا كحجين بال ليش إن الدونيس ومتى كدونيس لأن أمته جامي كراء ولا حريص دي يدم قشري دي لما تجد مشتري بات يوسير ولي أديكوا أفهم ماذا تكون هذا يكون معنا ناري هذا يصير حاجة أصلا بتوت أنت بايع مشترك كي كورنا أدون كي كورنا وحبك كمان هلا وحصل شو بس ورني ومدة وبنا ومدة أنا مذهبين في سيدا نقول نقول من سرير سمال لنا وكاساتين سمال لنا وكاساتين وحن مركا هالكن لا يهاي تذكر سمال لنا ويأخيان دولته دو من نحيسه وما تبقانيسه سعر بركي وحبا كما يقبان waxa miisaaniyada ku qorana waa afkubaadsi golaha wakiiladan martuugana arinta in wax ka qabto aad iyo aad bad mahadsantiin asxaabtan xeer lahayn isaamin xalaal ku imi